xogayaha maaliyadda xisbiga u cid Marwa Faadumo Siciid ayaa waraysi gaar ah oo Home Cable TV siisay mar aanu kula kulannay terminaalka Viking Terminal ee doomaha dalxiiska iyada oo u socota dhinaca Sweden waxay noo sheegtay in 3 toddobaad ay ku sugnayd Finland inay kulamo fara badan la yeelatay xukuumadda iyo baarlamaanka sida oo kale ay la kulantay ururo caalamiya oo dhinaca horumarinta ah iyada oo ka hadlaysana waxay tidhi muddo 3 wiiga aan joogay kulamo aad iyo aad u fara badan oo kala duwan baan galay wasiirka developmentka ama arrimaha horumarka Mr. Xaafista waan xafiiskiisa ku booqday anigoo kala hadlaya waxyaha horumarinta ee wadanka Somaliland uu u baahan yahay arrimaha dumarka dhalinyarada beeraha waxyaabo fara badan baan runtii ka wada hadalnay waxaan also iyadana aan la kulmay wasiirkii hore ee maaliyadda iyada oo aan iyadana aan kala hadlayay sida dhaqaalaha Somaliland maanta uu taagan yahay heerku taagan yahay iyo heerka aan jecelnahay in aanu gaarsiino iyo sida baa mushtarkay aanu u kobcin lahayn aan kala hadlay waxa iyaduna also aan kala qayb galay in shir gabadh arrimaha haweenka oo dhan ee wadanka u saabsan iyaduna islaan aad iyo aad u qiimo badan oo waxyaabo fara badan iyaduna igu soo kordhisay anna aan haweenkii Somaliland wax qabadkooda siday uga qaateen dubudhiska Somaliland iyo sida imaka ay u yihiin tiirarka ugu waaweyn ee Somaliland ay ku taagan tahay iyagoo ana dadka aad iyo aad horumarinta bulshada ku jira iyo dhalinyaradeenna oo maanta aad mustaqbalkeennii iyo dadka maanta aanu filayno inay noqdaan dadkii wadankeena iyo Somaliland madaxda u noqon doono iyo baahidooda iyo waxa aan u baahanahay in iyaga laftirkooda aanu shaqo abuurin iyo aanu ugu sameeyno waxa aan la kulmay oo kale ururo fara badan oo iyaguna horumarinta ah interview waxay ga qaaday televisionka Finland oo telefishinada ugu sareeya qolo kale iyaguna magazineska iyo newspaper jaraayadaha iyo soo saara iyagana interview yaal fara badan baan wada galnay xitaa qolooyin kale oo fara badan oo imaka aan soo wada koobi karayn halkan ku soo wada koobi karayn baan aan la shiray shirkii ugu dambeysay maanta soo galay waxa ahayd shir IGAD iyo wasiirka arrimaha developmentka oo ay horseedayaan oo ay sameeyeen oo halkan Finland lagu sameeyay oo dad fara badan ay ka soo qayb galeen oo wasiirkii arrimaha bulshada wasiir ku xigeenka arrimaha bulshada ee Shukri Xariir laftirkeedu ay ka soo qayb gashay halka waxa joogay wadamo fara badan baa yimi oo ay Djibouti ka mid tahay Eritrea Ethiopia kulli ay wada joogeen marka aan arkay laakiin arrimuhu siday u socdeen iyo hadallada ay dadkii meesha ka hadlayay soo jeediyeen bal hal su'aal anigu u kacay oo aan weydiiyay oo anigoo aan uga qayb galay anigoo odxa matalaya wasiiraduna iyadoo wasiirkii arrimaha bulshada ee Somaliland matalaysa ay uga qayb gashay hal su'aal baan markaa dadweynihii meesha joogay ka soo qayb galay iyo wasiirkii oo joogay iyo qolooyin kale oo aad u fara badan iyo qoladii IGAD oo joogta marka waxaan ku yiri peace building iyo nabadgelyo iyo statement building baynu ka wada hadlaynaa Somaliland intaas oo doorasho ah bay qabatay kii madaxweynaha kii baarlamaanka kii local governmentska waxaan referendumkii baanu sameynay intaasoo wax baanu qabanay dumar baa wasiiro noqday dhinac walba anagu empowerment of women marka la eegayo iyo horumarka haweenka meel wanaagsan oo aad iyo aad u fiican baanu ka qayb galnay haddana Somaliland nahay haddana ilaa imaka wali waxaad ka hadlaysaan sidii nabad loo dhalin lahaa dadka nabadda loo dhalinaya waa Soomaaliya laakiin Somaliland iyadu nabadeedii waa haysataa maxaad noo caawin weydeen sida aanu opposition parties kayaga iyo horumarka yaga kale ee statehood buildingka aad nooga caawin weydeen marka af buuxa buu ninka IGAD igu yidhi Somaliland mana aqoonsanayno mana aqoonsanin
Soomaaliya mooyaane ma jirto runtii aad iyo aad baan uga xumaanay waanu aad iyo aad baan uga xumaanay isku xanaaqnay anigu shirkii waan uga soo baxay sidaasaan uga soo baxay kumanaan noqon dadkii kale dad joogana way joogeen markaa runtii waxaan arkay inay u baahan tahay shaqo aad u fara badan ba xagga arrimaha dibadda inooga bannaan waxaya fara badan baa maxaa ahayd inooga bannaan inaynu samayno dowladahan aynu u tegayno iyo meelaha aan u tegayna weli waxay haystaan fikirkii inay Soomaaliya Somaliland ay meel kale yihiin waxaa loo baahan yahay waxaan sidii loo hagaajin lahaa sidii maxaa ahayd dadka fikirkan khaldan looga wax loogu sheegi lahaa waxa markaa aniga aad iyo aad ila yaabsiisay bal maxay arrimaha dibadda ee Somaliland ay qabanaysaa annagu bal intaasoo meelood baanu soo marnay oo maalin keliya ah imikana Sweden baanu aan ku sii socdaa arrimaha dibadda maxaa wasaaradda arrimaha dibadda iyo wasaaradda cadaaladda maxaa ahayd kulumaan la yeelanayaa jaaliyadii Somalilandna waxaan la yeelanayaa waxaan la qaadanayaa 18 May insha Allah bidmillaahi kariim laakiin waxa isweydiin leh 23 sanadood baanu taagnaynay dawladeennii Somaliland 5 sanadood ay markaa ay haysatay maxay ku soo kordhisay dadkii noo haystay bariga horan jiray Somaliland waxa weeyaan xaq bay u leedahay inay maanta goon istaageedii hesho baa maanta haddana weli ku taagan Soomaaliya kama go'i karto markaa waxa la isweydiinayaa arrimaheena dibadda maxay qabanaysaa maxay u baahan tahay sidee loo caawin karayaa sidee baynu wax ugu qabsanaynaa markaa waxaan u soo jeedin lahaa macaalid iyo maxaafid inteenuba inaynu gacmaha isqabsanno oo aynu arrimaheena dibadda aan u soo jeedsano oo aynu meel wajahan u samayno oo aynu jid u jeexno baan anigu aan ku soo jeedin lahaa waxaa kale oo maalinta qarannimada Somaliland ee 18 May ay kala qayb gali doontaa jaaliyadda Somaliland ee waddanka Sweden aadan Yusuf Ismaan Home Cable TV Finland